بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay jimco wanaagsan, Ramadaan wanaagsan. maanta taariikhdu waxay ku astaysan tahay 29 bisha barakeysan ee Ramadaan. maadaama bisha Ramadaan ay naga sii idlaanayso oo laga yaabo maanta inay noqoto maalintii ugu dambeysay Ramadaan, waxaan rabaa inaan idinla wadaago mowduuc ku aadan zakaatul fidriga. dhowr su'aal ayaan rabaa in muxuu ahaa walaalahayga Soomaaliyeed ee qaaliga la wadaago. haddaba su'aasha koowaad waxay tahay zakaatul fidrigu waajib miya mise waa sunno? walaalkayga muslimka ah, zakaatul fidrigu waa waajib. waxaa la waajib yeelay sanadkii labaad ee hijriyada nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka waa muhiim qofka muslimka inuu ogaado zakaatul fidrigu inuu waajib u yahay, laga rabaa qofka inuu ogaado waa muhiim. waxaa arinta ayada daliil u ah xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam: farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الشيخان. حديث كاسو بخاري مسلم اسكو وافقين. نبي واجب على زكاة الفطر مركوا واجب قفك لقربه مسلم كأهدو نقلها adoon ha noqdo ama xor ha ahaado, lab iyo dhedig kooduun ha ahaado, ama mid yar iyo mid weyn intaba waa waajib qof walbo muslim laga rabo. marka hadaba sunno ma ahe, waa waajib zakaatul fidri. qof walbo inuu taa ogaado waa muhiim. waxaa kaloo muhiim ah, waa maxay faa'iidada ku jirto in la bixiyo zakaatul fidrigu? waa maxay faa'iidada ku jirtaa? runtii waxaa taa ayada aynu tusinay faa'iidada ku jirto. waxaa inoo caddeeyay xadiiskan aynu sheegi doono laba faa'iida ku jirto walaalayaal. faa'iidada koowaad oo ah qofka muslimka ah soomanaa, intii uu soomanaa waxaa laga yaabaa in ay ka dhaceen hadallo iyo ficilo xunxun yaa laga yaabaa inuu sameeyo intuu soonaa. taa ayada waxaa yacni kaabaya oo qofka ilaahay uu kaga kabaaya zakaatul fidriga. sidoo kale qodobka labaad iyo faa'iido ku waa maxay? waxay tahay in qofka miskiinka ah maalintaas ay u noqonayso cunno, ay u noqonayso oo muxuu ahaa qofka muslimka maalinta ayada la rabo in muxuu ahaa in isagana cunno u helo. labadaa marka arrimooda ku jirta. labada arrimood ba xadiiska nabiga aan ka fahmayna calayhi salaatu wasalaam oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam: farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakaatul fidr. rasuulku wuxuu waajibiyay zakaatul fidriga. qodob koowaad waa duhratan lisaa'imi min allagwi walrafath wa tucmatan lilmasaakiin. qodobkaad wuxuu yahay qofka saa'imka ee sooman in muxuu ahaa wixii ka dhacay ee lagwi ah iyo rafath ah, qowl xun ama ficil xun ee ramadaanka gudihiisii ka dhacay yuu ilaahay kaga kabaaya subxaanahu. sidoo kale qofka muslimkaana cunno ayay maalinta u noqonaysaa. marka labada arrimood yaa ku jirta. waxaa kaloo muhiim inaynu ogaano qadarka la bixinayo waa maxay. waxa xadiisku uu sheegay saac ayuu sheegay. saaca marka loo fiiriyo halbeeg iyo waxyaaba maanta inuu wax ku cabirino waxay ka dhigan tahay waa 2 kiilo iyo bar. 2 kiilo iyo bar. su-aasha xigta waxay tahay waa maxay cunooyinka la bixinayo? muxuu qofka ku bixinayaa? wuxuu ku bixinayaa qofka cunooyinka qaalibka ah ee marka magaalada laga isticmaalo yuu ku bixinayaa. 2 kiilo bar wuu bixinayaa. waxaa kaloo muhiim ah, zakaatul fitr lacag ma ku bixin karnaa? jumhuurul culamaa sida isku waafaqsan yihiin waxay leeyihiin maya, waxaa wanaagsan in cunno lagu bixiyo. imaam abu xaniifa wuxuu qabaa in lacag lagu bixin karo, hase yeeshee waxaa xoog badan in lagu bixiyo muxuu ahaa cuntada lagu bixiyo, raashinka lagu bixiyo. su-aasha xigta waxay tahay
waa kuma dadka la siinayo zakaatulfitriga. zakaatulfitriga dadka la siinayo sida zakada oo kale ma oo yani sideedii nooc ee la siin jiray shardi uma aha. qof walbo miskiina waa la siin karaa zakaatulfitriga. su-aasha xigta waxay tahay ma jiraa dadka qaar oo aan la siin karin ma jiraa zakaatulfitriga? haa, waxaan la siin karin qofka taajirka ah iyo sidoo kale qofka gaalka ah iyo sidoo kale waalidka iyo sidoo kale caruurtaada iyo xaaskaada. intaasba muxuu ahaa zakaatulfitriga lama siinayo. waxa kaloo muhiim ah, qofka zakaatulfitriga xilligee ugu fadli badan ee uu bixin karaa? waxaa ugu fadli badan sida nebiga calayhi salaatu salaam uu yeeli jiray oosan weligii uunan kadib marinin, muxuu ahaa kama uunan hormarin jirin, ma uunan kadib dhigi jirin. waxa uu bixi jiray maalinta ciida inta aan salaada la gelin, salaada ciida la dukanin ka hor ayuu nabiga bixin jiray. xilligaasaa ugu fadli badan. su-aasha xigtaa waxay tahay qofka ma bixin karaa zakaatulfitriga oo ma hormarin karaa? shareecadu maxay ka qabtaa? taa ayaadan dhibaato ma laha. qofku wuu iska bixin karaa 2 maalmood kahor, 2 maalmood kahor wuu sii bixin karaa. wax mashaakil ma laha. haddaba walaalkayga muslimka ahow, zakaatulfitrigu waa muhiim, waa waajib ku saaran. waxaa laga rabaa qof walba muslima, naftayda iyo tiina waxaan kula talinayaa in muxuu ahaa la dadaalo isla markaan la bixiyo. waxaa kaloo rabaa in muxuu ahaa walaalahayga Soomaaliyeed ee muslimiinta ah inaan la wadaago habeenka ciida. dadka qaar laga damaashaad iyo farxad iyo ciyaar in lagu mashquulo. habeenka nabiga muxuu ka yiri calayhi salaatu wasalaam, habeenka nabiga wuxuu sheegay qofkii cibaado ku nooleey habeenka isagaa soo jeeda isagoo ajir xisaabsanaya, qofka isaga kuma dhacdo waxa la yiraahdo qaswatul qulub, qalbiga qofka muxuu kama dhimanayo. xadiiska nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam, man qaama laylatal ciidi muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam, qofkii habeenka ciida nooleeya ee cibaadada ku nooleeya isagoo ajir xusubsanaya, ruuxa isaga qalbiga kama dhinto. markay dadka qalbta ay ka dhimanayaan isaga qalbigiisu ma dhimanayo. walaalkayga muslimka ahow, habeenka ciidana muxuu ahaa waxaa la rabaa cibaado in lagu nooleeyo si muxuu ah uusan qalbiga kaaga dhimanin. walaalkayga muslimka ah, fariintan haddii ku soo gaarto waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagtid walaalaha muslimiinta ah, inaad la wadaagtid si adigna ajirkaad u heshid. wajazaakum allahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.